inuu ilaahay muuse sala allahu calayhi wasalam af soomaaliya kula hadli jiray intaasan u gudagelin waxaa muhiima horta inaanu ka bilownaa taariikhdiisa muuse iyo adeerkii fircoon oo taariikhyahanka adduunka gebi ahaantoodaba isku soo afgarteen inuu luqadii uu ku hadli jiray fircoon iyo boqortooyadiisa iyo ancient Egyptba ee tahay luqadda ugu dhow maanta af soomaaliga oo weliba ah luqadaha kusheetiga kuwa ugu farac weyn ka taariikh weyn kana da' weyn oroomaha Eritrea iyo Anfarta oo iyagu laftigooda isku dalada kusheetinimada soo wada galayaanba taariikhdana inay dhab tahay waxaba nagu sii xoojinaya kitaabka Ilaahay oo nagu sheegaya inuu Muuse baqdin uu ka baqay adeerkii ku dhawaaqay dhulka Ilaahiday baan u baxsan doonaa lacalla inaan ka helo xagga hanuun dhulka Ilaahiday oo loo turjumo badanaa maanta land of Punt Ilaahay baan dhulka nagu sii xaqiijinaya inuu yahay dhulkii xadda barakeysnaa oo laga soo saaray ambiyo fara badan oo kamid ahaa Shucayb alayhi salaam oo Ilaahay ku tilmaamay inuu ahaa nin maadhibaana ama af Carabi noqonaya Madian oo ka tirsanaa qoomiyadda la dhaho Madians sadaradeed waxa waliba ku sii cadaanaysa in ilaa iyo dhulkaas oo dhanba af Soomaali lagu wada hadli jiray waayo Muuse alayhi salaam ku dhulkaas soo degayba judhiiba way isfahmeenba ayakoosan u kala baahneen turjumaana cadeynta laftigeeda waxaad ka helaysaa xataa inuu markii uu dulqarnayn uu tagay isagu meesha qoraxda ku dhacdo oo ah Maghrib ama Morocco maanta dhulkaas inuu toos birti ku qaraacay asaga laftigiisa kamid ahaa qolooyinka hoos galaya qoomiyadda maadhibaanka ama waliba lafta tumaalka ahba ceeb maaha Suleymaan alayhi salaam isagu laftigiisa wuxuu ahaa nin tumaala oo waxa ku sii cadeynaysa isaga laftigiisa inuu ku dhashay dhulkan Madianska wuxuu ka guursaday aakhirkii gabadhii Araweelo oo ragga xaniyaha ka siibi jirtay oo taariikhyahan kale markii dambe uu arshigeedii soo qaaday oo sidaas u toobad keentay qofka kaliya kugu haysta Soomaali hadda tahay taariikhdaas waxa weeye Etoobiyaanka oo dhahaya Queen Sheba laakiin taariikhda ma xusayso sida ay u xusayso Araweelo taariikhda Soomaaliyeedba hase yeeshee Ilaahay kitaabkiisa wuxuu noogu sheegayaa inay hadda qoomiyadii sharafta lahayd ee maadhibaanka markay qaabileen Muuse alayhi salaam ee diintii dhaqankii iyo wixii meesha ka jiro dhan baareen asagoo waliba af Soomaaliga kula hadlaaya ayuu ka bacdina Ilaahay buur ka tusay iftiin yar uu isagu arko kaliya buurtaas markuu ugu dhaqaaqay uu u dhawaaday waxa lagu yiri waxaad soo gashay dhulkii barakeysnaa ama meeshii barakeysneede kabahaaga sib baqdin baa ku dhacday aakhirkii wuxuu dhahay Ilaahayo iskee ka tus markaas lagu yiri isma ka tusi kaliya buurta ba xamili kareen laakiin muhiimadda aan ugula jeedo waxa weeye luqadaas uu ku hadlayay ma ahayn luqadii Ilaahiye waxay ahayd luqad uu ku fahmo Muuse wuxuu ku hadlayay luqadii adeerkiis oo ahayd af Soomaali ama af Soomaaliga meesha ka bilaabmataba oo ahayd sida loo turjumo maanta luqadda